السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام دمانتينا meel walba aad joogtaan nin dembi lahayn ayaa waxaa lagu xukumi lahaa xabsi daa'im waxaa lagu xukumi lahaa xabsi 20 sano ka badan balse uu ka badbaaday daawasho wacan ninkan waxaa lagu magacaabaa Juan balse magaciisa waxaa u qoran Juan Catalan wuxuu ka soo jeedaa dalka Mareykanka waana ogahay wajigiis uma eko qof Mareykanka ka soo jeedo balse uma eko wuxuu u ekahay Latin America iyo meelahaas inuu ka imaaday balse meesha aan qisada aan ka soo akhriyay waxaa ku qornaa inuu ka soo jeedo dalka Mareykanka ninkan oo la yiraahdo Juan wuxuu leeyahay xaas iyo waxaana u joogto gabar 6 sano jir ah maalimaha ka mid ah asagoo gurigiisa iska joogo ayaa waxaa imaaday gurigiisa askar asagoo gurigiisa fadhiyo familkiisa la fadhiyo ayaa askarta albaabka soo garaacday albaabku ka furay way qabteen waxay dhaheen dambi ayaa gashay marka waa ina maxkamad lagu saaraa Juan ma oga dambigu uu galay dadkii ama askartii wuu raacay askartii waxay sameysay Juan ayaa waday waxay geysay saldhigga marka meesha la geeyay ayuu ogaaday in oo lagu eedeeyay inuu dilay gabar yar marka waxaa dhacday maxkamad ayaa la soo istaajiyay looyarkiisa ayaa imaaday wuu difaacay mar badan ayuu isku dayay inuu difaaco balse ma awoodin Juan wuxuu dhahay saacadda gabadhaas la dilay ama xilliga gabadhaas la dilay aniga waxaan joogay garoonka waxaan daawanaya ciyaar balse maxkamadda way amini weysay xitaa wuxuu tusay tikitka uu ku galay garoonka mid kale askarta ama maxkamadda cadeyn kama hayaan bas adiga dishay adiga cadeenkeen ina adiga dilin adiga cadeenkeen macnaha waxooda waa xujo qof la iska soo qabtay adiga ayaa dishay ma dilin okay cadeenkeen idinka cadeenkeena in oo aniga dilay ma hayaan way iska heesteen arinta Juan waxay socotay 6 bil ayuu xabsi ku jiray arintiisa iyo dilka gabadhaas loo geystay ayaa la baarayay 6 bil kadib ayuu wuxuu soo xasuustay maalinta oo asaga garoonka joogay garoonka waxaa joogay group oo filim duubaya ama musalsal duubaya macnaha maalintaas oo asaga garoonka joogay garoonka waxaa joogay shirkad wax duubayso filim ma la duubay barnaamij ma la duubay musalsal ma la duubayay ma oga asaga balse wuxuu hubaa in oo meeshaas joogtay shirkad in maalintaas joogtay shirkad wax duubayso marka wuxuu sameeyay looyarkiis ayuu la xiriiray arinta ayuu u sheegay wuxuu dhahay ma ogi filim ma la duubay musalsal ma la duubay barnaamij ma la duubay ma ogi aniga balse waxaan hubaa meesha waxba lagu duubay maalintaas aan meesha joogay wax ayaa la duubay marka adiga bax soo raadi waxay ahaataba filim musalsal barnaamij qofka ama shirkadda maalintaas wax meesha ku duubaysi soo raadi waxa laga yaabaa in aad ka soo heshid muuqaaladood ayaga duubeen inaad ka soo heshid aniga oo meesha ka soo muuqdo marka lawyer-ku wuxuu sameeyay wuxuu bilaaway inuu raadiyo maalintaas shirkadda meesha wax ku duubtay yaa duubay filim ama barnaamij ama musalsal waxay ahaataba yaa duubay meeshaas wax ku duubay maalintaas oo garoonka ciyaarta ka jirtay yaa wax duubay baaritaan dheer kadib wuxuu ogaaday inay ahayd shirkadda HBO waxayna duubaysay ama waxayna duubayeen musalsal shirkaddii ayuu u tagay arinta Juan ayuu u sheegay ninkan dhibaato ayaa haysato marka waxa badbaadin karo haddii la tustaan muuqaalka oo maalintaas duubteen waxaa laga yaabaa in aan ka dhex aragno muuqaalka aad duubteen shirkadda waxay dhahday okay soo dhawaaw waxay u furtay arshiifka muuqaalada lagu duubay ama muuqaalada oo maalintaas lagu duubay garoonka balse dhibka jiro lama oga Juan intuu ka soo muuqda laga yaabo inuu ka soo muuqdo musalsalka dhexdiisa muuqaalada oo la tirin oo musalsalka lagu daray inuu ka soo muuqdo ama waxa laga yaabaa inuu ka soo muuqdo muuqaalada qaladaadka waxaa laga yaabaa muuqaalkii oo asaga ka soo muuqda inuu ahaa muuqaal qaladaadka inuu ahaa oo laga tiray arshiifka macnaha lama oga balse shirkadda waxay sameysay arshiifka dhan ay u furtay lawyer-ka waxay dhahday gal baar cajalaha dhan waa kuwan gal adiga baar meeshaad rabtid ka raadi muuqaalo gaarayo 20 saacadood oo ka soo muuqda 56,000 qof ayaa waxaa laga rabaa inaad baartid lawyer-ka waxaa u taalo hool badan oo weliba la hubin in Juan ka soo muuqda muuqaaladaas marka wuxuu sameynaa uu iska dadaalay lawyer-ku wuxuu bilaaway baaritaan dheer 13 maalmood kadib wuxuu arkay muuqaalka Juan maalin walba qayb ayuu fiirsanay maalin walba 1 saac 2 saacadood ayuu fiirsanay mid kale fiirsasho kaliya ma ahan
waa inaad fiirsatid oo baartid. kaamirada waxay ku dhacee garoonka dadka jooga dhan. waa inaad istaajisaa, soo dhaweysaa, zoom samaysaa. waa sheeko dheer. marka waxay ku qaadatay 14 maalimood 13 maalimood sorry 13 maalimood kadib wuxuu arkay muuqaalka ninkan oo la yiraahdo Juan asaga iyo gabadhiisa. isla markii wuxuu sameeyay qeybtaas yar ayuu qaatay, wuxuu la aaday maxkamadda. wuxuu cadeeyay lawyerka ninkan la yiraahdo Juan inuu garoonka joogi maalintaas asaga iyo gabadhiisa. macnaha ninkan oo la yiraahdo Juan dambi ma lahan, balse 6 bilood waa kala miseen. 6 bilood ayuu xirnaa dambi la'aan asagoo dambi lahayn. marka waa inuu helaa magdhow. lawyerka uu u dooday kadib maxkamadda waxay ogolaatay inay bixiso $320,000. Juan ninkan la yiraahdo lacagtiis ayuu qaatay $320,000. kadib wuxuu galay jaamacadda. 2017 shirkadda Netflix qisadiisa waxay ka samaysay filim documentary ah. filimkana waxaad ka heli kartiin website-ka Netflix ama Google hadda ka raadisid asagoo free ah waad ka heli kartaa. intaas ayaa idin soo bandhigay. waxaan rajaynayaa inaad ka hesheen. haddii aad ka heshay la wadaag asxaabtaadii ama u share garay. marka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.